بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة وناكسن وسيدة بشا أغسطس سنة كاللبكم لباتنية شن أو كوبيغان أفر يتوبانك بشا صفر سنة كن أفر بقول أفرتنية تضبا تاريخ دي هجرية كسو دوادا مركله إيا برامجكي حرشة وراركا قضبدا برامجك آن إذي كوها إننا ساكا وحا كمدا حماس أو سعاد أغهر تمد hadalkii Netanyahu ee ahaa in dalal Carbeed uu ku wareejinayo qabza marka uu qabsado kadib Falastiiniyiinta oo kaliya ayaa yeelanaya go'aanka iyo cidda maamulaysa Gaza ayay Xamaas si cad u tiri Jordan oo noqotay dowladdii Carbeed ee ugu horeysay oo ka soo jawaabta hadalka Netanyahu ee ah in uu ku wareejinayo dalal Carbeed marka Gaza haddaba qabsashada Gaza ayaa waxaa sidoo kale la sheegayaa in Israa'iil ay ku qaadan karto muddo 5 sano ah Mareykanka oo ku baaqay Xamaas inay isdhiibto isla markaasna hubka ay dhigto Israa'iil iyo Masar oo kala saxiixday heshiis ku kacaya 35 bilyan oo dollarka Mareykanka ah Masar iyo Suudaan oo mar kale ka hor yimid qorshaha Itoobiya ee biyo xireenka weyn sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa Mareykanka oo ku dhawaaqay in la soo qabto madaxweynaha waddanka Venezuela in lagu bixinayo 50 milyan oo dollarka Mareykanka ah maxaa laga rabaa warbaan idinkugu haynaa arrintaas dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhaytayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa soo dhawaada marka la daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka wahagaag saaka waxaynu ku bilaabaynaa Itoobiya biyo xireenka ay wado waxaa la furi doonaa bisha foodo inagu soo haysa ee September sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya laakiin arrintan mar kale waxaa ka hor yimid wadamada Masar iyo Suudaan haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan oo labada wadan ay kaga soo horjeedaan qorshaha Itoobiya Masar iyo Suudaan ayaa si wada jira waxa ay sheegeen inaysan aqbalayn tillaabooyinka halka dhinaca ee Itoobiya ay wado ee biyo xireenka weyn kadib markii Addis Ababa ay ku dhawaaqday in dhismaha mashruuca tamarta korontada laga dhaliyo ee ku kacay 4 bilyan oo dollar la dhameystiray ra'iisul wasaaraha Suudaan Kamal Idris iyo dhigiisa Masar Mustafa Madbouly ayaa si cad u cambaareeyay habka Itoobiya kaligeed go'aan uga gaarayso biyaha webiga Niil webiga Niil waa inuu ahaada mid la iska kaashado ee ma aha mid isqabqabsiga ayuu yiri ra'iisul wasaaraha waddanka Masar Mustafa wuxuuna sheegay in Masar ay garab taagan tahay Suudaan si ay u difaacdo amniga biyaha ee labada dal iyo xasiloonida gobolka biyo xireenka oo ku yaala webiga Niilka buluuga ah ee u dhow xuduudda Suudaan iyo Itoobiya ayaa ah kan ugu weyn ee Afrika ee laga dhaliyo koronto wuxuuna horeyba u bilaabay inuu koronto soo saaro waxaana si rasmi ah loo daahfuri doonaa bisha September ee soo socota sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Itoobiya Itoobiya waxay ku dooday in biyo xireenku muhiim u yahay horumarka iyo baahida tamarta ee dalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ku sifeeyay tilaabo horumar Afrika u horseedaysa isagoo ballan qaaday in kobaca Itoobiya uusan ku imaan doonin qasaaraha dariska si kastaba ha ahaatee Masar iyo Suudaan ayaa dalbanaya heshiis sharciyan ku xiran nidaaminta iyo buuxinta shaqada biyo xireenka Masar webiga Niil waxay u aragtaa isha nolosha oo muhiim ah waxaana uu bixiyaa 90% biyaha nadiifka ee laga isticmaalo dalka Suudaan dhankeeda waxay ka walaacsan tahay ammaanka biyo xireenka iyo saameynta uu ku yeelan karo qulqulka biyaha xilliyada kala duwan inkastoo wada hadallo hormuud u yahay midowga Afrika ay socdeen sanado badan haddana heshiis kama dambaysa lagama gaarin arrinkan iyadoo hadda biyo xireenku shaqeynaya qubarada ayaa ka digaya in khilaafka la xallin waayo haddii khilaafka la xallin waayo inuu keeni karo xiisad hor leh oo gobolka ka dilaacda wahagaag markana balaynu eegno war la xiriira dhanka Masar xalay intii la socotay barnaamijka qubaraha waxaan idin soo gudbinay xildhibaan ka tirsan
baarlamaanka waddanka Masar oo sheegaya in Israa'iil iyo ururka ikhwaana muslimiin wasiidalku yiri ay iska kaashanayaan inay qas ka abuuraan gobolka Sinai ee waddanka Masar. laakiin haddana waxaa soo baxay war kale oo sheegaya in Masar ay la saxiixatay Israa'iil heshiis 35 bilyan oo dollar ku kacaya. waa dhanka dhoofinta shidaalka gaas laga soo dhoofinaya Israa'iil oo la keenaya Masar weeye sheekadani. haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan. Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in ay saxiixday heshiis ku kacaya 35 bilyan oo dollar ah oo gaaska dabiiciga ah ugu dhoofinaysa Masar, iyadoo wasiirka tamarta ee Israa'iil Eli Cohen uu ku tilmaamay heshiiska ugu weyn taariikhda Israa'iil. shirkadda NewMed oo ka mid ah mashruuca gaaska ee Leviathan ee Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in heshiiska uu daboolayo iibka 130 bilyan oo cubic meter oo gaaska dabiiciga ah ilaa iyo sanadka 2040 ama ilaa laga gaarayo dhammaan qadarka lagu xusay heshiiska oo ah 130 bilyan ee cubic meter. wasiirka tamarta Israa'iil ayaa qoraal soo dhigay baraha bulshada wuxuu ku yiri waxay xoojinaysaa arrintani doorkeena awoodda tamarta ee gobolka oo dariskeena ay ku tiirsan yihiin. waxay kaloo uu sheegay inay tahay war u wanaagsan dhaqaalaha Israa'iil maadaama ay keeni doonto balaayin dollar oo dakhliga xukuumadda Israa'iil lagu kordhinayo abuurista shaqooyin korna u qaadaya dhaqaalaha dalka. sida uu yiri warbaahinta Reuters ayaa sheegtay in heshiiskan uu ka caawin doono Masar dhibaatada xagga tamarta ka haysata, taasi oo ku qasbanaatay in balaayin dollar ay ku bixiso dhoofinta gaaska tan iyo markii baahida guduhu ay dhaaftay awoodda wax soo saarka. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in heshiiskani uu ahmiyad dheeraad ah u leeyahay marka la eego heshiiskii 2019 kaasi oo daboolayay 60 bilyan oo mitri cube oo gaas ah oo la siinayo Masar. waxaana leeyahay imika waxaa lagu samayn doonaa in heshiiskan labalaab u noqon doono. gaaska waxaa la marin doonaa dhuumo, taasi oo ka dhigas mid jaban marka loo eego in lagu dhoofin lahaa maraakiib, taasi oo qaali noqon lahayd sababtun ay tahay qaboojinta aadka u sarreysa ee lagu bedelayo gaaska dareere marka markabka lagu raro kadibna marka laga dejinayo loo bedelayo gaas. Reuters ayaa waxa ay soo xigtay ururka wadajirka ee kaydinta xodka tamarta ee lagu magacaabo Jodi in gaaska Israa'iil ay siisa Masar uu ka dhigan yahay 15% ilaa 20% gaaska laga isticmaalo guud ahaan dalka Masar. goobta shidaalka lagu qodo ee Leviathan ee ku taal badda Mediterranean-ka ayaa waxa ay bilowday soo saarista gaaska sanadkii 2020 waxayna sidoo kale gaas siisaa dalka Urdun. si ku meel gaar ah ayaa loo joojiyay dhoofinta intii lagu jiray dagaalkii 12 maalmood socday ee dhex maray Israa'iil iyo Iiraan. waa hagaag bal markan aynu eegno war dhanka Mareykanka ka soo baxaya oo la xiriira lacag la dul dhigay madaxweynaha waddanka Venezuela, madaxweyne dadkiisii ay doorteen oo waddankiisa maamulaya ayaa Mareykanku waxay leeyihiin hala soo qabto. haddaba aynu eegno sheeko arrintan ay ku saabsan. dowladda waddanka Mareykanka ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay ku bixin doonto 50 milyan oo dollar macluumaadka la xiriira soo qabashada madaxweynaha waddanka Venezuela Nicolas Maduro. waxaana la sheegayaa in arrintan ay la xiriirto sida hadalka loo dhigay eedeymaha ka dhanka Maduro. waxaana arrintan ku dhawaaqday xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Mareykanka Pamela Bondi. waxaana ay sheegtay in lacagtan Mareykanku ay diyaar u yihiin inay bixiyaan si loo soo qabto madaxweynahaasi oo lagu eedeynayo sida hadalka loo dhigay arrimaha la xiriira mukhaadaraadka oo markaasi dalka Mareykanka la soo geliyo sida hadalka loo dhigay. waa hagaag wararkayga ugu dambeeyay ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay waxaad kula socoteen Netanyahu oo ay kaga dhigan tahay marayka Gaza ayaan qabsanaya. waxaan idin soo gudbin doonaa sheeko Israa'iil gudaheeda ka imaanaysa oo la leeyahay 5 sano ayay ku qaadanaysaa Israa'iil inay si buuxda u qabsato marayka Gaza. dhaqaale badan, askar badan oo halkaas ku geeriyotana waa ay ka horeysaa dhammaan waxaas oo idil. laakiin ururada Falastiiniyiinta ee hubeysan
ayaa bayaan soo saaray si wada jira haddaba aynu eegno warkan oo laga sii daayey telefishinka aljaziira saacadihii lasoo dhaafay ururada muqaawamada falastiiniyiinta ayaa waxay sheegeen in hadallada iyo siraha ka soo baxaya Israa'iil ee ku saabsan qabsashada Mareyka Gaza in ay yihiin ifafaalo muujinaya niyad jabka iyo damaca xasuuqa ee lagu caburinayo shacabka iska caabinta ururadu waxay ku adkaysteen in Gaza aysan ahayn dhul bannaan oo qof Kirista uu raadinayo ama raadinaysa balse ay tahay dhul dhiigga shuhadadu ay qariyeen oo gacanta ugu jira halgamayaashooda waxayna sheegeen in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isku dayayo in uu qariyo guuldarrooyinka siyaasadeed iyo ciidan ee uu wajahay isagoo suuqa gelinaya hadalla khiyaali ah oo ah inuu qabsanayo Gaza ururada iska caabinta waxay intaasi ku dareen in Gaza aan laga maamuli doonin Talaabiib ama caasimad kale oo shisheeye balse dadka iska caabinta ee Gaza ay maamuli doonaan sida ay doonaan u maamuli doonaan bayaanka muqaawamada ayaa waxaa lagu sheegay in Israa'iil ay u qaadatay in awood military ay ku soo furan karto maxaabiista ku jirta gacanta iska caabinta arrintaasi oo la sheegay inay tahay mid aan suurtagelayn dhinaca kale ururka Xamaas ayaa si gaar ah isna wuxuu u soo saaray bayaan waxaana lagu sheegay in qorshaha Netanyahu ee ku saabsan ballaarinta weerarada ay muujinayaan inuu doonayo in uu dayaco maxaabiistiisa kala dhigo kuwa lagu halligo danihiisa shakhsiga ah sida Xamaas ay tiri Netanyahu ayaa Khamiistii sheegay in Israa'iil ay damacsan tahay inay ciidan ahaan ula wareegto dhammaan Mareyka Gaza laakiin ugu dambeyntii ay ku wareejin doonto dalal Carbeed si halkaas ay u maamulaan mar arrintan wax lagu weydiiyey intii lagu jiray waraysi uu siiyey telefishinka Fox News ee laga leeyahay Mareykanka ayaa Netanyahu wuxuu yiri ujeedadeenu waa taas ma doonayno inaan sii haysano Gaza waxaan rabnaa deegaan amni ah mana doonayno in aan xukunno ma doonayno in aan joogno halkaasi anagoo maamulayna wuxuu carabka ku adkeeyey in Israa'iil aysan rabin inay maamusho Gaza balse ay doonayaan inay ku wareejiyaan dowladda Carbeed ama ciidamo Carbeed isagoo yiri markaasi waxaan rabnaa in aan Gaza mar dambe nagu noqon qatar laakiin war arrimahan la xiriira Usaama Hamdan oo ka mid ah mas'uuliyadda ururka Xamaas ayaa waxa uu sheegay in ururka uu la dhaqmi doono cid kasta oo soo gasha Gaza sida ku cad hadallada Netanyahu cid ku socota guumaysi oo la shaqeynaysa Israa'iil Hamdan wuxuu carabka ku adkeeyey in hadallada Netanyahu ay muujinayaan inuu ku guul daraystay la dagaalankii muqaawamada isagoo carabaabay ciidamo Carbeedna wuxuu in la keena Mareyka Gaza wuxuu gobolka gelin doonaa xaalad cakiran Hamdan ayaa si adag u dhaleeceeyay mowqifka caalamka isagoo sheegaya in ay u siiyeen waqti dheeraad ah Israa'iil in ay fuliso dambiye dhammaystiran oo ay ka fuliso Mareyka Gaza isagoo intaasi ku daray in loo baahan yahay in lagula xisaabtamo Israa'iil iyo cid kastoo gacan ku siisa gaajaysiinta ba'an ee ay ka hirgeliyeen Mareyka Gaza haddaba Netanyahu markuu leeyahay ciidamo Carbeed baan ku wareejin doonaa Mareyka Gaza Jordan ayaa soo jawaabtay aynu eegno war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Jordan waxay noqotay dowladdii Carbeed ee ka jawaabtay hadalka Netanyahu ee ah in Gaza lagu wareejinayo ciidamo Carbeed waxaana si adag loo sheegay arrintan inay tahay mid aysan Jordan qayb ka noqon doonin waxaana wasaaraddu ay sheegtay mas'uuliyadda iyo sugidda amniga Mareyka Gaza iyo dhammaan dhulalka Falastiiniyiinta waxaa iska leh hay'adaha sharciga ee Falastiin waxaana carabka lagu adkeeyey in carabtu marnaba aysan ogolaan doonin siyaasadaha Netanyahu mana waxay yiraahdeen arrintaasi noqon karto mid wax hagaajinaysa ee waxay noqonaysaa mid wax burburinaysa dhinaca kale wargeyska The New York Times ee ka soo baxa Mareykanka ayaa waxa uu ka soo xigtay mas'uuliyiin Israa'iiliin ah oo sheegaya in militarigu ay aaminsan yihiin in gacan ku dhigista Mareyka Gaza ay u baahan tahay bilo laakiin in si buuxda gacanta loogu dhigo oo loo maamulo Mareyka Gaza ay u baahan tahay 5 sano oo dagaal joogto ah danjiraha Mareykanka u fadhiya Israa'iil ayaa isna wuxuu ka hadlay xaaladda Mareyka Gaza Mark Huckabee ayaa waxa uu sheegay in Trump uu doonayo in xal loo helo Mareyka Gaza wuxuuna sheegay in xalka ugu wanaagsan inuu yahay wasaaradalka u dhigaya Xamaas inay isdhiibto hubkana dhigto isla markaasna ay sii deyso maxaabiista wuxuu ku eedeeyay Xamaas in ay gaajaysiinayso maxaabiista Israa'iil isla markaasna aysan jirin cid cadaadis saaraysa si loo quudiyo maxaabiista telefishinka kanaal 13 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa isna wuxuu ka soo xigtay
taliyaha guud ee ciidanka Israa'iil Eyal Zamir oo sheegaya in qabsashada iyo haysashada iyo gelitaanka Mareykanka Gaza in ay noqon karto mid markaasi dhibaato culus keeni karta laakiin waxa uu sheegay intaasi ay noqonayso dhibaato bini'aadantinimo oo Mareykanka Gaza ka dhacda iyo xitaa sidoo kale mid qatar gelinaysa nolosha maxaabiista Israa'iil isla markaasina keeni karta dhimasho aad u fara badan oo la soo gudboonaata ciidanka Israa'iil waxaana uu leeyahay arrintan waxay leedahay qatarteeda وهجاء dhinaca kale duqeymo ayaa la soo warinayaa ilaa iyo xalay ilaa iyo saaka Israa'iil inay ka wado qaybo badan oo kamid ah Mareykanka Gaza Khan Yunis ayaana kamid ahayd meelihii xalay galinkii dambe ee madaafiicda goobta lagu duqeynayay halkaasi oo shalay sidaad kula socoteen barnaamijyadeena ugu dambeeyay iska cabinta weeraro ay ka fulisay وهجاء wixii warar soo kordha barnaamijka wararka maanta oo saacada kadib soo gali doona ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii Allah idmo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgeli